kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiin baa meel kastoo aad joogtaan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo mid ka mid a barnaamijyadeena Nadaara Show. daawadayaal maanta waa Sabti, taariikhduna waa 4 bisha Maarso sanadka 2023. barnaamijkan waa kii ugu horeeyay maanta oo Sabti ah. barnaamijyada aanu jecelnahay inaan idiin soo gudbino haddii Allah awoodilihi uu ka raali noqdo. daawadayaal barnaamijkeena waxaynu ku faahfaahinaynaa warar kala duwan ayaa saacadba saacadda ka dambaysa ka soo kordhaya doorashada la filayo ee adag ee ka dhici doonta waddanka Turkiga 14 May sanadkan haddii Allah awoodilihi ka raali noqdo. haddaba doorashadan Turkida kaliya ma aha saan horeedii kugu sheegay, waxaa ku daaban dowlado waaweyn oo doonaya in meesha laga saaro Erdogan. haddaba wararkii ugu dambeeyay kooxihii mucaaradka ahaa oo kala jabay, miiskii ay wada fadhiyeen isku garaacay, kadibna laba musharax ay kala sheegteen inay la tartami doonaan Erdogan. haddaba sheekooyinkaas iyo xaaladda sida ay tahay saacadihii ugu dambeeyay, miidiyaha Turkiga waxa uu arrimahan ka yiri, kuwii caalamiga ama miidiyaha caalamiga waxa ay ka qoreen ayaan barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa. anigoo Cabduqaadir Maxamed Cashir Nadaar ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya. barnaamijyadeena soo gudbintoodana waxaa gacanaya siiya shirkadda xawaalada Safari Remit, xarunteeda waa UK, adeeggeeduna waa online. fadlan booqo bogooda www.safariremit.com. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. waa tahay daawadayaal, waxaan guda galaynaa barnaamijkeena aynu ku eegayno wararkii ugu dambeeyay doorashada la filayo inay ka dhacdo waddanka Turkiga 14 bisha May. haddaba sheekadan shalay ayaan barnaamij ka sameeyay iyadoo qoladii 6 ahayd ee xisbiyada mucaaradka ahayd ee loo yaqiinay kooxdii fadhiday miiska wareegsan in markaa barashar badan adduunka uu saarayay oo ahaa in maaragtay ay samaystaan musharax. dowladaha doonaya in meesha uu ka baxo Erdogan dan kasta ha lahaadeen waxay rabaan inay hal musharax ka soo saaraan mucaaradka si markaa awoodooda ay isugu geeyaan, isla markaana Erdogan ay ula tartamaan. haddaba shalay waxay noo joogtay iyadoo weli la ismari laayahay oo nimankii ay fadhiyaan kursigii. ayada tuso sheekada shalay meeshay joogtay. sidaa arkaysaa sawirkan waa 6 hogaamiye xisbi, hal gabar ayaa ku jirta, 5 kale waa rag. 6doodaas waxa ay doonayaan in meesha laga saaro Erdogan, laakiin waxa ay isku haysteen ilaa xalay waqti dambe in ay iska dhex doortaan hogaamiye si markaa uu ula tartamo Erdogan. haddaba xalay sheeko yaab leh ayay warbaahinta Turkidu marka soo tabiyeen. miiskii la fadhiyay ayaa waxay yiraahdeen waa la isku garaacay. nimankii 6 ahaa waxay diideen inay iyagoo midaysan ay hal qof iska dhex doortaan. buuq badan baa dhacay, miiskii baa la isku rogaaliyay. haddaba dagaalka muxuu u dhacay? horta ay tuso sawirro ay ka sameeyeen miidiyaha ee waddanka Turkiga oo lagu maadeysto oo sida ay wax u dhaceen ah. sida aad arkaysaan gabadha ku jirta xisbiga ee la yiraahdo Meral Akşener ayaa miiska dhinac uga degan oo tuuraysa. ninka la yiraahdo Kemal Kılıçdaroğlu'na dhinaca kale ayuu joogaa, kuwii kale waxbay celcelinayaan. marka macnaha sawirka wuxuuna tusinayaa in miiskii lagu kala tagay oo lagu diraray. waa tahay marka waxaa leeyahay dagaalka marka maxaa sababay? dagaalka marka waxaa leeyahay wuxuu dhex maray labadan qof. aan idin tuso sawiradooda. gabadhan waxaa la yiraahdaa Meral Akşener, waxay madax u tahay xisbiga la yiraahdo Jayid ama xisbiga wanaagsan. Kemal Kılıçdaroğlu'na waxa uu madax u yahay xisbiga la yiraahdo xisbiga jamhuuriga ee shacabka waddanka Turkiga. waa xisbi qadiimi ah oo waddankan taariikh ku leh oo muddo soo xukumayay,
waa kuwa hadda haysta gobollo badan sida Ankara iyo Istanbul iyo meelahaas xisbigii ku guuleystay doorashadii ugu dambeysay ayaa waxa la yiraahdaa xisbiga jamhuuriga ee shacabka Turkiga. Kamaalka iyo naagta ayaa ishelay marka miiskii ayaga ku dagaalay. sababta marka ay u dagaaleen maxay ahayd? nimankii kale ee afarta ahaa ayaa waxay soo jeediyeen in Kamaal uu noqdo ninka la tartamaya Erdogan. Kamaal marka ninka la tartamaya Erdogan ha noqdo markay yiraahdeen gabadhu way diiday. waxay tiri suuragal ma aha ninkan ma iska celin karo Erdogan. haddii ay leedihiin xisbiga ninkan hala tartamo Erdogan waxba kama qabo oo wiilasha dhalinyarada ah ee jooga Istanbul yarka haysta iyo midka Ankara haysta midkood hala keeno. marka midka Istanbul haysta waxa la yiraahdaa Akram İmamoğlu, midka haysta Ankarana waxa la yiraahdaa Mansur Yavaş ayaa la yiraahdaa. marka waxay tiri labadaas wiil midkood ha soo tartansiiyo isaga meesha ha ka baxo. waa la buuqay marka waa la is aflagaadeeyay waa la isku dhacay waa la buuqay sidee u diidi kartaa waa diiday tiraade ninkan waliba meesha waxa laga sheegay waxyaabo yaab leh. waxa la yiri ninkan horta waa nin calawi ah. ninka Kamaal la yiraahdo waa shiico waa calawiyiin. calawiyiinta tirada yar ee degan Turkiga ayuu ka soo jeedaa tiri Kamaal. Kamaal marka calawi waxa la yiraahdaa qolada hadda Suuriya haysata Bashar al-Assad iyo qolooyinkaas waa qolooyin aad u isaga sii fog. gaalada waxba ma dhamaano niman shiicanimada xataa ka sii fog waay. calawiyiin la yiraahdaa. marka waxay tiri Kamaal waa calawi. sidee cod uga heli karaa inta badan shacabka Turkiga oo sunniyiin ah? annaga ha noo sheeginina waxaas. nimanka keenay tiri sunniga ah Turkiga ah Akram İmamoğlu Istanbul iyo Mansurkan meesha haysta si aan dagaal toos u galno. nimankii kale marka barasharaa waxbaa la soo saaray ninkan doortaa la yiri. ninkii marka ogolaadeen inay doortaan iyaga. marka meeshii buuqa saasa keentay buuqaasa marka ka dhacay. buuqa markuu dhacay kadib dibadda loo soo baxay. gabadhii marka shir jaraa'id ay qabatay waxay sheegtay in ay iyada kaligeed musharax tahay iyadana. waxay tiri inaysan miiskii waa lagu kala tegay tiri ninkan waa doorana ay leeyihiin cid isku raacsan lama arko. ninkan hadduu musharax sheegtay anna musharaxad baan ahay madaxweynahan u tartamayaa ay dhaan. aniga waxaan soo jeediyay tiri ninkan ma gadmaayo Erdoganna iskama celin karo. nimankii Istanbul iyo Ankara ku guuleystay oo xisbiga Erdogan kaga soo adkaaday doorashooyinkii hore nimankaas aan dhisno midkood way wuu diiday. anigana marka waxay tiri hadda musharax baan ahay. buuqiya marka Turkiga oo dhan isqabsaday. nimankii mucaaradka waa kala jabeen. gabadha marka gabar caadiya ma aha waa halaag oo waxa kan meel saaraysa kaligeeda ku jirtay miiska lixda ee wareegsan المائدة المستديرة دار عربت ميسكا وريكسنا لهذا ميسكا وريكس كليدا قبر وجرد وإذا كدي دنكن لا دورتو حتري وحكى جرا مجران وياه marka waxa soo hadlay maayaradii Istanbul iyo Ankara kala haystay oo gabadhan ay leedahay ninkan la doortay inuu la tartamo Erdogan idinka ka roora in la idin tartansi. marka ayaga fakarka ay qabaan marka muxuu yahay? waxaan ku hormareynaa Ankara maayarka haysta ay isku xisbiga yihiin Kamaal ninka la yiraahdo hadda raba inuu la tartamo Erdogan. Mansur Yavaş oo Ankara maayarka wuxuu leeyahay annagu wax dhiba kuma qabno Kamaal waa odageena inuu tartamo oo xisbiyada kale ay u ogolaadaan inuu tartamo waa soo dhaweynayna ayuu yiri. waayahay midka kale ee Istanbul haysta Akram İmamoğlu ayaa isaguna Twitterkiisa soo dhigay fariintan uu ku leeyahay annaguna wax dhiba kuma qabno ninkan waa odageena Kamaal Kılıçdaroğlu isaga ayaa noo tartamaya. marka waa isku xisbi saddexdooda. Kamaalka hadda raba inuu la tartamo Erdogan odaga iyo nimankan Istanbul iyo Ankara kala haysta
kulligood waxay ka tirsan yihiin xisbiga jamhuuriga ee shacabka waddanka turkiga waa xisbi calmaani ah oo fog waay weliba oo nimankii waddankan dhibaatada badan u geystay oo diinta dadka ka fogeeyay ayay ka tirsan yihiin. waayahay marka waxaa jira nin ku-xigeen ka ah xisbigan gabadha ay maamusho ee la yiraahdo Miral Akşener gabadha la yiraahdo xisbiga jayid la yiraahdo ee maamusho nin ku-xigeen ka ah waxaa la yiraahdaa Ibrahim Hilali ayaa la yiraahdaa. Ibrahim Hilali warbixin uu qoray wuxuu leeyahay ninkan Kamal la yiraahdo oo ka soo jeeda kooxda tirada yar ee aqaliyada ee calawiyiinta sidee uu guuleysan karaa Erdogan oo sunni ah oo dadka sunniyiinta Turkiguna ay boqolkiiba in badan yihiin waddanka oo dadka ugu badan yihiin sidee ninkan calawiga loo dooranaa ma dhici kartay leeyahay. marka gabadhu ku xigaa ninkan isku xisbi yihiin gabadha joornaaladii marka soo qaadana hadalkiisa dagaalkaas marka iyagiya qoorta ilaahay isu geliyay nimankii mucaaradka ahaa oo halka isku baabi'inay. waayahay marka nimankan maxay ku doodayaan marka mucaaradka doortay Kamal Kılıçdaroğlu inuu Erdogan la tartamo oo u babac dhigo waxay ku doodayaan waxay gadayaan fakar ah new Obama waaye Obama camal waaye ninkan Kamal la yiraahdo Obama asagoo dadka madow ka soo jeeda oo cadaankuna aad u badan yahay Mareykanka ayuu madaxweyne noqday. marka wax diidaya ma jiraan in ninkan calawiga ee shiicada ah uu waddanka Turkiga xukumo waxaasay gadayaan. marka xalay marka waxaa wararkii ugu dambeeyay ilaa saakay doorashada marka halkaasay maraysaa. marka dadku wax falanqeeyo waxay leeyihiin fursad weyn ayuu sii helay Erdogan isaga oo ka baqayay markii hore in ninkan qof aan ahayn ay soo dirsadaan sida ninka Ankara haysta oo kale iyo ninka Istanbul haysta oo niman dhalinyarada Turkiga oo sunniyiin oo in markaas inay xoogaa la tartami karaan. laakiin ninkan calawiga khudbadaha ugu horeeya ayuu dariishada kala bixi doonaa Erdogan marka uu ololihiisa si rasmi ah u bilaabo toddobaadyada soo socda ayaa la leeyahay. ninkan wax badan marka ma ka goyn doono halkaas. marka ninkan siyaasad ahaan xagee ku daaban yahay Kamal ninka la yiraahdo Mareykanka waxaa leeyahay ninkan waagii Obama iyo Hillary Clinton ay soo dhiseen ninkan ay soo wadeen ilaa maanta iyaga ayaa riixaya xisbiyadii kala ka gaday oo leh ninkan hala wado. sawirra marka media ka keeneen Hillary Clinton oo Mareykanka ku qaabishay Kamal Kılıçdaroğlu hadda raba inuu la tartamo Erdogan sida sawirka arkaysaan iyo rag la socda. waqtigaas marka waxay weydiisanayeen Mareykanka oo dhowr safar isaga daba laabteen in iyaga ay mudan yihiin in la taageero si ay meesha uga tuuraan Erdogan. marka Mareykan wixiisu waa cad yihiin dagaalkiisuna waa iska muuqda inuu doonayo in Erdogan meesha laga saaro. laakiin shacabka Turkiga ayay u taalaa inay iyagu kala doortaan waxa ay rabaan anfacaya iyo waxa aan anfacayn iyaga ay u taalaa. annagana ducada ayaan Erdogan ku kaalmayn doonaa. marka annaga ma rabnay tiri qof calawiya inuu waddankan hogaamiyo waa la iska raacay nimankii calmaaniyiintii qoorta ilaahay isu geliyay dagaalkaasaan dhacay waa taa aragteen miiska waa la isku rogaa la yidhi xalay si fiicana la isu garaacay. haddaba wixii kasoo kordha arrimaha doorashooyinka Turkiga Nadaara Show ku xirnaaw si aad mar walba ula socotid adinkana usoo duceeya ilaahay inuu ku guuleysiyo doorashada dhici doonta 14 May ee soo socota. daawada barnaamijku waa naga intaa fadlan barnaamijyada share gareeya like saara inta ku cusub facebookeena fadlan follow gareey inta ku cusub YouTube channelkeena subscribe saara like na saara si in badan barnaamijyadan ay u gaaraan. aniga Cabdiqaadir waxaan casharada idin socodsiinayay inta barnaamijkan la mid kulmayno nabadgelyo.